arooska waa ku faraxsanahay gabadhii aan doonahayay oo in badan aan u rafaaday oo aan diiday oo dalkii aan ka waayay baa ilaahay ii keenay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا كسر هذا معلم channel أصحابتا عصب هنتي وان سو دويننا كوني كوجر كسر هذا وحصاركتين نينكا odayga ee arooska galay runtii ku jiro waxa loo yaqaano honeymoon awlan intaan gudagelin videoga horta waxaan rabaa inaan u hambaliyo asaga marodiisa hambaliyo kubii isku nagaada war qayr qaba kala hela alla inaga dhigo ayaan leeyahay marka koowaad marka labaad video wax kale ma soo qaadanin wallahi marka aan ku faraxay waa reer isku faraxsan isku qanacsan runtii waxaan dhihi karaa kuwa dhaxdooda ku jira dulmiga wada waxaan dulmi wax kooda fahmi kartay ninka odayga waa la galay waxa la dhahay gabadhan awow u tahay konton sano jirta internet jirta ordaada waa iska number marka labada qof hadda isku faraxsan yihiin waxaan dhihi karaa wax kali kulu gudboon adiga waa inaa u hambaleysid aad dhahdid mabruuk marka inta badan social media waxaa qabsatay dood arooska markuu dhacay kadib ninkan gabadh waa lagu qasbay waa lagu qasbay uma qalanto lacag ayuu wataa uu gatay wax noocaas ama social media soo geliyay marka ana runtii wata kama hadlin marka xaqiiqda ka hadlo laakiin wax hadda oga hadlay waxay tahay farxadda ka muuqata marka aragtid wajigooda sida isku faraxsan yihiin isku qanacsan yihiin waraysigan hadda la soo qaaday TV ayaa soo wareystay sa arkaysaan wuxuu wareystay wax kale ma ahan arooskooda ayaa runtii qabsaday adduunka meel walba Soomaali joogto waa laga helay arooskan marka waxa hadda farxadda ka muuqato ka aragtid runtii waxa is leedahay dadkii dhaxdooda ku jiray hadda say dareemayaan marka waxaan dhihi lahaa ninka odayga ama gabadhan lacag ka bixiyo ama jecelaha u guursado ama iyada ha jeclaato ama ay jeclaanin wada isku qanacsan oo taxadarkan marka waxaan dhihi lahaa dhaxdooda ha laga baxo yaa lagu mashquulin runtii ha loo duceeyo waa reer soo kordhay ee Soomaaliyeed markuu guri dhisman runtii waa lagu farxaa waa loo hambaleeyaa marka in lagu mashquulo waxaysan ahayn laga sheego waxaan dhihi karaa waa dullam wax fiican ma aha marka taa aydan halaag wax badan arkay aroosi badan lagu mashquulay marka waxa ugu muhiimsan kaliya waxay tahay adiga gabadhi ma dhalin runtii ninka wax aroosayna adiga matid adina ma dhalin marka waxa fiican in dhaxdooda aadan ku daalin wax hambaleesid runtii ayaga is calamaday ama lacag iskala baxaan ama iskala bixin marka dhaxooda in lagu daal wax fiican ma ahan dhihi karaa marka horta gabadha marka koowaad waxaan leeyahay dabcan dhagaheeda waxyaabo badan ku soo dhacay markuu arooskan dhacay waana waxyaabaha inta badan guryaha dudumi waxyaasa kamid ah laakiin waxaan ku amaanayaa inaysan dhageysanin horteeda u socotay haddana saa arkeen ay yihiin reer isku faraxsan isku qanacsan video asoo dhamaystiran gadaal leewa doontaan in yar aynay soo tusay marka insha Allah marka koowaad waxaan jeclaan lahaa in runtii loo soo hambaleeyo saana u farxay adiga daawana u farxdid waqtigooda quruxsan ee hadda ku jiraan runtii loo duceeyo in Ilaahay u barakeeyo cimri dheer cibaadana Ilaahay isku siiyo ubad qayr qabana runtii kuwii kale helan Allah ka dhigayaan leenahay laakiin ninka odayga hadalkiis marka la dhamiyo video waa daawan doontaan hadalkiis waxa ku jira hadallo oo uu leeyahay dad badan ay soo mashquulay waa la soo galay waxa ay ku joojinay waxaan leeyahay hore u socon ku taageer hadalkaasaga arooska waxaan u malay inuu ka dhacay magaalada Gaalkacyo marka inta badan waxyaabaha hadalheenta dhilin waxay ahayd arooska qaabka u dhacay jawiga qurxoona oo ku jiray bawarta hadalheen dhaliyay aroos inta badan waa arkay oo runtii hadii oo ninka uu weyn yahay macnaha bari hore saam ahaan jirnay sanad ugu dambeysay waxaan soo baxday bari hore waxaan arki jirnay nin weyn oo 60 jir 30 sano jira gabadh 20 jir guursanayo wax ku mashquul jira ma lahayn laakiin sanad ugu dambeysay waxaan moodaa aroos haduu dhacaba in inta badan isku mashquulo oo la dhaho waa ka weyn yahay waa ka yar yahay wax noocaas camal waa arkeed gabdho badan oo leeyahay ninkeeda guurstay rag badan oo leeyahay gabdho keeda guursadeen marka ninkan hadaladiisa waxa ku jirta inta badan dadkii igu soo mashquulay oo ilaha
gabar qeyra guursatay waxaa samaysay runtii hadallo kulul uu ku tuuray waana ku taageeraa inta badan marka intaan video guda gelin ka hor waxaan jeclaan lahaa inaan dhageysano wareysigiisa oo kooban arooska waa ku faraxsanahay gabadhii aan doonahayay oo in badan aan u rafaaday oo aan diiday oo dalka aan ka waayay baa ilaahay ii keena dadka xaasidka igu ah inay ku socotaan ku rajo weyna markii aniga raxmad baa igu soo degaysa markii la ii shido ama dadka uu ii soo taaniyeynayaan ama dibadaha laga soo wacayo waxa moodaa dadkaas aniga qalbigayga waxa ku soo dhacaya sharaf iyo wanaag baa ku soo dhacaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha Allah soo dhameystiraan doontaan asxaabta videogan runtii wax kale uma soo qaadan hadda kor waxaan inaga balan qaaday markaan arko wax fiican inaan ii soo gudbiyo marka dabcan wixii fiicnaan buu ka mid yahay waa guri oo muslim ah ee Soomaaliyeed oo soo kordhay in lagu farxo oo loo hambal runtii way naga mudan yihiin asaga inta la midkan runtii waxaan leenahay hambalyo inta guurstay walow arooskii ugu qaalisanaa runtii qarniga hadda aan dhihi karo waa meherkii abanada ama fanaanada Soomaaliyeed ee Safiitusmo oo 120 neef oo geel laga bixiyay xanuun wallahi laakiin ayagana waxaan leenahay hambalyo waa hambalyo la soo daahay laakiin hadda videogan ay topic ahaa inta badan oo ka dambeeyay kaas marka asxaabta waxaan dhihi lahaa ninkan usoo hambaleeya hadda aragtaan videogan uu kusoo gaaro ninka Soomaaliyeed aan usoo hambaleeno aan usoo duceyno dad badanaa galay oo ku mashquulay waxyaabo asan u ahayn waxyaabo kale laga sheegay laakiin mimid waxay tahay in asaga iyo marwadiisa ay soo fadhiisteen ayagoo isku faraxsan isku qanacsan that's the point ugu muhiimsan kaas oo waxaana ka aan tixgelin inta badan waxyaabo la sheegay inta badan danteena maahan laakiin hadda aan laba qof oo isku faraxsan isku qanacsan runtii jawi qurxoon ku jiro waanu muqaddis ama waanu qasab inaan u hambaleeno aan garab istaagno marka waxaan leeyahay reegalka ay dhamaantood runtii arooskana ka qayb qaateen hambalyo ayaa mudantiin dhamaantiina asxaabta videogan intaas ku soo gabagabeynina haddii tahay markuu janag asoo boqotina fadlan subscribe noo saar arooska waa ku faraxsanahay gabadhii aan doonahayay oo in badan aan u rafaaday oo aan diiday oo dalka aan ka waayay baa ilaahay ii keena dadka xaasidka igu ah inay ku socotaan ku rajo weyna markii aniga raxmad baa igu soo degaysa markii la ii shido ama dadka uu ii soo taaniyeynayaan ama dibadaha laga soo wacayo waxa moodaa dadkaas aniga qalbigayga waxa ku soo dhacaya sharaf iyo wanaag baa ku soo dhacaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan wanaagsan daawadayaasha naga daawanaya page-ka Saxan Saxo Production magacaygu waa Saxan Saxo Production waxaa la joogaa lamaanaha ugu shidan magaalada Jaalkacyo waa lamaanaha muuqaalkooda aad daawateen maalmihii la soo dhaafay oo dabcan page-ka ku aragteen caawa ayaan halkan ku wareysanayaa oo magaalada Jaalkacyo waana lamaanihii ugu shidnaa Jaalkacyo Soomaaliya oo dhan ba intooda ku soo dhawaad marka hore salaam bacdiyeed waxaan salaamayaa saxaafadda ka qaybgalayaasha intii